waxyaalaha amaanta soo ogaan waxaa ka mid ah inaysan dadka fahansaneenba shahaadada lafta bis ay sugaan marka shaygan aqoonsiga hay'adda bixisaa 3 qaybood oo kala baxa waa iyo aqoonsi iyo lafta iyo shahaadada qofka marka lafta bis uu sugaa asoo qofka heli kara shahaadada oo baahiyooyinkiisa ku dabooli karo baasaboorka iyo shahaadada waxbarashada iyo wixii u baahnaa oo dhan iyo bangiyada ku furlaa soo heli kara oo wuxuu kuliyay qofka kaarka iga maqan marka shahaadada si loo soo degsadana dadka maanta waa tusni oo samay fahansaneen waxyaalaha maanta aan xalin waxa ka mid ah ama aan dhigeysanay barnaamijka rebrinta lostiga kaarka dadka ka dhumay oo badan aan fahansaneen meel ay ugu aadaan qofka markuu kaarka ka dhumay baraaco mara wuxuu tagay degmo kadib warqad ayuu qoranay degmada macnaha saldhigan ka wada warqad qorna baafin soo damir kadib ayuu aadaa xarumaha ka mid oo loo asteeyay hay'ad dalkaas ay ku xalinaysaa waxaana maanta u soo baxnay in caqabadaha ka jira dadka bulshada dhexdeeda inaan dhageysano oon ka caawino waxyaabihii markaas caqabada ay rabeen inaan ugu jawaabno waxaa ka mid ahay qofka markiina inuuna aqoonin qaabka oo loola dego shahaadada marka qaabka loola dego oo tirsiga tusaynay qaabkaas inuu shahaadada uu la degi karo oo code number soo dhacay OTP soo dhacay OTP numberkaas meesha gelinay ka bacay shahaadada la degaay mid labaad aan isku u sharaxayn waxay shahaadada iyo qofka kaarka haysanin inay kaarkii shahaadada isku mid yihiin ay hal shaqo u qabanayaan tusaynay u sheegeen oo sharaxaynay